walaalkiina sayid official oo idin leh daawasho ka bugasho mahadsanidin. qofka akhlaaqda badan, qofka ku sifaysan akhlaaqda wanaagsan, erayada toosan, indhaha araggasan, fiirmada asluubaysan, erayada hagaagsan, afka cadaraysan ee erayada carfayaahi ka soo baxayaan, kama shallaayo siismada iyo waxa uu bixiyey, mana suga marnaba in lagula mucaamaloodo qaabkii uu isaguba dadka kula mucaamalooday. laga yaabee in lagu abaalmariyo ama loo soo celiyey jawaab ahaan mucaamalo iyo dhaqan aan raalligelinayn, laakiin middaasi waxba kama beddesho akhlaaqdiisa. laakiin wuxuu xanuunsadaa oo keliya markuu ogaado in siismadiisii ama wixii uu bixiyey ay galeen ama ay ku dhaceen gacanta qof aan mudnayn. muhiimaddu waa inuu wax bixiyaa, niyaddiisuna ay jirto xagga Alle subxaanahu wa tacaala, sababtoo ah ninbaa hadda ka hor wax bixiyey, markaabay ku dhacday gacanta nin tuug ah. mar kaluu bixiyey waxay ku dhacday gacanta nin taajir ah oo hodan ah. mar kaluu sadaqo bixiyey habeenkii isagoo dadku aysan arkaynin oo isqarinaya, naftiisana iska leh, Alle subxaanahu wa tacaala ha kuugu dembi dhaafo, markaabay sadaqadii ku dhacday mar kale gacanta naag saaniyad ah. laakiin dib buu ka ogaaday in ninkii tuugga ahaa markii sadaqadii uu helay oo Ilaahay ku beddelay tuugnimadii iska daayay shaqo fiican uu helay, kadibna uu bilaabay inuu shaqaysto noloshiisana hormariyo. ninkii taajirka ahaana wuxuu ahaa nin bakhiila, markii sadaqada la siiyey ayuu bilaabay inuu wax sadaqaysto oo dadka masaakiinta ee faqiiriinta ama cayrta ee ka hooseeya inuu gacanta u taago wax siiyo. gabadhii zaaniyadda ahayd ee jirkeeda ka ganacsanaysay, saasna ilmaheeda ku quudinaysay, ayaduna way iska dhaaftay xumaantii oo Ilaahay nin wanaagsan oo xalaala buu ugu beddelay, allana arsaaqdeedii wuu u waasiciyey. haddaba qofka akhlaaqda badan kama shallaayo siismada, mana sugo abaalmarintii uu asagu bixiya la mid ah, laakiin wuxuu ka xanuunsadaa oo keliya markuu ogaado in siismadiisii ama wixii uu bixiyey ay galeen ama ay ku dhaceen gacanta qof aan mudnayn. weligaa iyo allaha iska ilaali, ha ka quusan sabarka. haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala doono shay inuu ku siiyo, ilbiriqsi adigoo ishaadu gibirsan ayuu ku siin karaa. kama qarsoona ilintaada wax rajaynaysa ee dhabankaada ku soo daadanaysa, kamana qarsoona sidoo kale hirarka waaweyn ee murugada iyo tiiraanyada ee qalbigaaga dhex sabaynaya. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ma awoodi weyn inuu xaaladaada iyo adiga dhanba ku hagaajiyo, laakiin Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay inaad gacanta u taagatood ku celceliso baryada. innii jazaytuhum alyawma bimaa sabaruu, anigu maanta waan ku abaalmariyey wixii ay ku sabreen dartii. haddaad sabarto, Allah subxaanahu wa tacaala wuu ku abaalmarinayaa shaki la'aan. ilaahay ma dhihin innii jazaytuhum alyawma bimaa salluu ama bimaa saamuu ama bimaa tasaddaquu, wixii ay tukadeen ama soomeen ama sadaqaysteen, ee wuxuu yidhi bimaa sabaruu, wixii ay ku sabreen. sababtoo ah sabarku waa cibaado aad gudanayso adigoo dareemaya misna uu xanuunku ku hayo. ma og tahay walaal, marka aad qalbigaaga wax ku eegayso, aragga indhahaagu wax micnaa ma lahan. aragga gudaha ee qalbigana waa ka xeel dheer yahay aragtida indhuhu ay wax arkaan, sababtoo ah aragtida qalbiga waxaa la jira dareen, laakiin aragtida indhaha caadigaa waa aragti uun oo keliya. iska ilaali, ha odhanin waan daalay, sababtoo ah dadka dhan way daalan yihiin. ha odhan waxaanahay qof wanaagsan, sababtoo ah dadka oo dhan way wanaagsan yihiin. hana dhihin sidoo kale waan murugaysanahay, tiiraanyo ayaa i haysa, walwal iyo walbahaar, walaac iyo dhibaato, sababtoo ah dadka oo dhan way murugaysan yihiin. laakiin waxaad tidhaahdaa alxamdu lilaah, Ilaahay baa mahad iska leh, dhammaanteen waan soconnaa, dunidan waan ka tegaynaa. walaalkiina sayid official oo idin leh daawasho ka bugasho mahadsanidin.